rays iyo xaajigeeda Mowlid ayaa maalinta berita ah kusoo wajahan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. Qof waliba oo Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa jooga waxaan ugu baaqayaa in mar ay soo arkaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونكسر مالي ونكسر دور ونكسر كستو دين تا ونكسر موقع كان عفوا ديت كدا ونسا إلى إذن زيادة ديت مرسنت المركت الله إذا كقال دي مركو رسم موقع كان أسوق اللي سنة لايك شير كومنت لو بدك أصحاب تاعي أدبان إذن جعلها رنتي أوكي حواي ونصاد خرالك كسو أركتين مقالة مقدشو وحكسو وجهان برنسس كوين والله شقال بيها بقرة عدك Soomaaliyeed فنانة Soomaaliyeed يوتيوبر Soomaaliyeed تيكتوكر Soomaaliyeed اللي وحكستا رسمي رايس iyo xaajigeeda Mowlid ayaa maalinta berita ah kusoo wajahan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. Qof waliba oo Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa jooga waxaan ugu baaqayaa in mar ay soo arkaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Rasmi rays runtii waxay ku jirtaa saaxiibadkeeda dhanka social media kuwa ugu dhow. aadaan ugu faraxsanahay in aan markii ugu horeysay Muqdisho aan kusoo dhaweeyo Rasmi Rays. waxaan ku leeyahay sister Muqdisho kusoo dhawaabo muddo adoo ka maqnaa magaalada Muqdisho. Rasmi Rays runtii fankeedii iyo socialkeedii wuxuu ka hanqaaday magaalada Nairobi oo aad aragteen wacdarihii la yaabka ahaa ee soo bandhigi jirtay. Rasmi hadda runtii waxay noqotay marwo waxay ka gaabatay dhanka iyo social media marka sababta keentay hadda inaan idin soo fariisto oo aan idin sheegay in walaashay ay kusoo wajahan tahay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. reer Muqdisho waa dad goba waa dad lagu yaqaan soo dhaweynta waa dad lagu yaqaan in ay qofka u kacaan sidoo doon ahaado ay soo dhaweeyaan. halka magaalooyinka kaleetana ay tahay markii ugu horeysay bilawga in lagu imaanayo kadibna aadan hal qof arkeenin oo laga kala dhuumanayo. marka Muqdisho intaa way qaroon tahay. sidoo kale magaalada Muqdisho waxaa jiraan dad afka ka dhahaya afka wanaag ka kala hadlaya laakiin aan ku muujinaynin wanaaga oo dantooda mooyee wax kaleeto aan ka fiirsanaynin. dhabana magaalo kasta ay ku nool yihiin dadka waxaan leeyahay caafimaad Allah idin siiyo. xanuunka oo kaliya ma aan maanta inaad qandhato maanta inuu cudur kugu dhaco ama maanta in si kale u xanuunsato xanuunada waxa ugu daran xanuunka dadka qalbiga ka haya ama xanuunka dadka caloosha ka haya. qofka walaalka ah markuu ku dhahayo waa ku soo socdaa ku soo wacayo oo kula soo hadlayo wax kale kaama rabo maanta lacag kaaga ma baahna maanta wax kaaga ma baahna laakiin only ina magaaladii adi joogtay magaaladii adi aad kaga soo horeysay magaalada jadwalkeedna aad fahansan tahay sida inaad usoo dhaweyso laakiin ma ahan qofkii markuu ku yimaado dantaada gaarka ah markii aad ka dhaxweyso qofka inaad wajiga u bedesho ama aad ka dhuumato. waxyaabaha inta badan dadka lagu yaqaan social media ku jira nooc doonaan ha noqdaano qof walibana waxa uu yahay buu ahaana. maanta hadii aad iswanaajiso wanaag waliba hadii aad samayso hadii aad xuntahay ma wanaag samaysid laakiin hadii aad wanaagsantahay oo wanaag aad samayso wanaagay dadka baa sheegayo heblow wanaagsan yahay heblow wanaagsan yahay heblow wanaagsan yahay lagu leeyahay. marka rasmi soo dhawaad ku leeyahay ku soo dhawaad magaalada Muqdisho iyo xaajigaaga. waxaan filayaa inay noqon doonaan lamaanihii ugu horeeyay ee Muqdisho si wada jir ah u soo gaara. walaalaha Soomaaliyeed social media ugu jira qaarkood waan ismaqalnay halka qaar kaleetana taleefanada ay qawo waayeen laakiin halkana waxaa ka leeyahay welcome abaayadeen iyo walaalkeen soo dhaweyntoodii waynaan u istaagnaa si biri anagana markii aan Nairobi ama Jigjigo aan u baahano inaan tagno in noola kaco oo nala soo dhaweeyo sida ayaga aan u sameynayno in biri noola sameeyo. walaaliyahan ismaqal insha Allah ta'ala walaashan rasmi aan dareensiino in magaaladeedii ay tahay gurigeeda ay tahay magaalada Muqdisho ay tahay magaalo qof waliba Soomaaliyeed u furan in ay imaadaan. dhamaanteen hadii aan isku duubnaano oo aan iswalaashano oo aan isu heshano xaqiiq wax waliba aan qaban karnaa. calool xumidan inaan iska dayno markii aan iska dayno wax kasta oo jiro way noo suurta galayaan oo way noo hirgalayaan. marka rasmi abaayo kusoo dhawaad Muqdisho. muqdisho waa hoygaagii Muqdisho waa gurigaagii Muqdisho waa meeshii aad ka soo bilowday haddana waxaan ku leenahay welcome. marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee dibadda naga daawanaya dibadda jooga dii soo bax boorsooyinka hala soo qaato magaaladii hala yimaado. magaaladii waxaa ka socda horumar aad iyo aad la taaban karo. magaaladii way isbedeshay magaaladii aad taqiineen ma aha Muqdishadii aad taqiineen 9 meedkii ma aha
muqdishada cusub ee 2022 mar uu nala soo arka soo baxa soo duula kaalaya hooyo aabe walaalo imaada muqdisho idin baahan muqdisho idin jecel ilmihiina keena ilmihiina waxa laga yaabaa in xagga qaarkood ay ku dhasheen oo intay aysan fahansaneen magaalada hala keeno magaalada hala yimaado magaalada ciyaalka ha dareemaan war xeebta liido hadii la geeyo ciyaalka wax waliba oo hayo ka baxa xeebay qurux badan aan qabnaa jaziiraan qabnaa ilaahay ku madarnaade waxa way liido warshiikh xeeb aad u qurux badan oo inda dogsiga ah aan leenahay cimiladeena aad bay u wanaagsan tahay marka qaasatan Soomaalida dibadda ku nool ee ilmahooda aan keenin Soomaaliya imaada Soomaaliya inta la keeno waa idin jecelnahay anaga idin baahan markasta waan idin hadlaynaa waa kaalayo idin leenahay marka waxaan rabnaa adinkan inaad magaaladii timaadaan magaaladii aan quruxsano magaalada anaka iskale wallahi billahi taala maanta dadka siyaasadda isku haay I don't know wax naga magalin laakiin anaka dhalinyaro ahaan magaalada anaga u baahan maanta fiiri hadii muqdisho la yimaado wax laga duuduubo muqdisho la soo intaaba anaga dan iyo wax waliba aan ku qabnaa marka only waxaan jeclaa lahaa dhamaan maamooyinka Soomaaliyeed wallahi waxa jiraan dhowr maamo ila soo xiriireen muqdisho maanta ilmahaaga hadii aad keento xaqiiq wax isbedel badan ku dhacayo isbedel maskaxiyan isbedel qalbiyan isbedel jirriyan wax kasto haddana bilihi waxa waay ugu qolaa lagu jira kuleelkan waxa waay jirka u baahan jirka kuleel u baahan marka dhamaantiin noo soo laabta noo imaad ban idin jecelnahay waan idin heesa qabnaa qof walba Soomaaliyeed oo muqdisho imaanayna si qalbi furnaana si la furnaana ayaan u soo dhaweenayna anagoonan dan gaara ka lahayn anagoo wax qaas aan ku xireenin anagoo ujeedo gooni aan ka lahayn waxaan leenahay soo dhawaada garoonka noo dhaw diyaaradaha waa maqluusin guuxooda waxa bay maalin walba waa la imaada marka insha Allah marka maamooyinkana daawanaya ee dibadda ku nool waxaan idin leenahay mar uu nasoo booqda nasoo gaara oo noo imaada si aan waxyaabo badan wadankeena u wada qabano war cunada freshka ah aan geel lagu lisay abisa wasaqda kugu jirto oo dhan way kala baxeen cunna fresh ah cunna filinjeera idin dilooti maanta dhan filinjeerka laga soo bixiyo baradha loo baahan filinjeerka hilib loo baahan filinjeerka khudaar loo baahan filinjeerka meeshaan waa baxa beerta tagay afgooy wasoo gurnaysa liin balbeemada fiiqan waa cunay fiiri liin balbeemo ama liin macaan asoo goosanay waa cunay ambihi isbaandeyski macada dalkeena taala only baa naga badan marka dhamaanteen magaaladeena aan imaano magaaladeena noo baahan magaaladeena idin jecel soo baxa soo booqda muqdisho imaada dhamaanteen aad idin jeclahay rasmi rees iyo xaajigeeda waxaan idin leenahay welcome soo dhawaada insha Allah taala way ku soo wajaayeen muqdisho maalinta birita ah insha Allah taala soo dhaweynteeda waad ka soo qayb gali kartaa qof walaalo anay waaye cid la dhahayo malahan cid loo diidayo malaha inta badan Soomaalideena waxaan naqaana dhaqan ah oo waxaan isbarnay qofka ma isoo waa qofka magaalada uu imaana haduu ka gaari waayo adiga inaad xumaato maahan inaad u tagto waaye hadii bariyo soo baxay wallahi xalay ila soo hadashay only waxay u tirinay Ismaaciil oo soo socda only bis video waxaas dhan kama warqabto laakiin videogan waxa sameynaa maadaama rasmi dhanka YouTube-ka ay ka mashquulshay dhanka baraha bulshada ay ka mashquulshay inaan ogaano dhamaanteen in walaasheen ay soo socoto dhamaanteen aad idin jeclahay muuqaalkan hala wada share gareeyo hadii intaan aan soo daawanaysan xoogaa afkayga khalad ka dhacana had xumaan adii iyo aragtan waxaan ka codsanayaa inaad isaamaxdo muuqaalka xiga intaan iskugu imaan doono waxaan idinkaga tagayaa caafimaad buuxa waxaan idinkaga tagayaa qalbi wanaagsanaan waxaan idinkaga tagayaa kalgacayl waxaan idinkaga tagayaa inaad noqotaan dad inta badan qalbiyada ka wada socda dhamaantiin waxaan idin leeyahay nabadgelyo